maanta ayaa markii ugu horeysay saldhigga booliiska ee magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaaga uu dhawaan dhisay kana hirgeliyay magaalada Ceelbu gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl ayaa maanta xariga laga jaray saldhigga booliiska ee magaalada Ceelbu munaasabadii xarijarka ayaa waxaa ka soo qayb galay cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada Ceelbu taliyaha ciidanka daraawiishta Ceelbu guutada 54 ee magaalada Ceelbu taliye gaashaan la dhexe Mustafa Siciitor maayirka magaalada Ceelbu Maxamed Axmed Cali Salaad iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sanaaga Cabdiraxiin Maxamuud Cabdulle ayaa markaasi si wada jira maanta xariga uga jaray saldhigga booliiska ee magaalada Ceelbu maanta laga bilaabana ay tahay bisha 7 uu markaasi si toos ah u shaqeyn doono saldhigga booliiska ee magaalada Ceelbu waxa aanu xarig ka tareynaa saldhiggii booliiska Ceelbu shaqadiisii oo bilaabmaysa saacadan way bilowday laakiin sidii sharciga ahayd u bilaabmaysa iyadoo ay hareeraha xigaan taliyihii qaybta iyo taliyihii guutada daraawiishta Ceelbu ciidankii taliyihii saldhigga diyaar waxaanu nahay dawladnimada horumarka wada shaqaynta waxay la tahay ilaahay baanu awood ilaahay baanu u baahanahay ilaahayna wayna ka kaalmaynayaa wixii ka dhiman wada shaqayn fiican iyo taliska oo si fiican u shaqeeyo la rabo siday tahay inay u shaqeeyo anagoo siday tahay ula shaqaynayna saldhigga والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما وحقول السلام يا مايرك يتليا قيبت يودياشا يتليا سلقة صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنوهم بلينا الدولة بتلان ومدحويري سعيد عبد الله الدين هو جامعة كيهي سلقي وتليا قيبت كانوا مهد علينا بوليس كنوع كيني وصاك سلقي نوفري تليا سلقي نواكن وأنا الله شغالنا وتليا دراوش شباب هاي كنت أفراد Ceelbu مسؤول ويرنا كما فرنا وكل شغالنا الدولة دلدت كوبها هي كدر جمايو وما هذه لهي دقمة نوحي قدون تبلت إن شاء الله ودمي اللي قيبت بوليسكا أنا وأه عن سلام يا قدوميها دقمة Ceelbu تليها وتلا دراويش Ceelbu سلك يدوي هاي تليها سلك عصب وضياش كذا ساك وحن حرقة كشرنا وشقديش بلا ونسى هذي الله يدمو سلك Ceelbu ciidanka booliiska la keenay oo ka howlgalayo hadii alla idmo maanta oo ibishu tahay 7 laga bilaabo hadii alla idmo 8 bal malin 7 marka afran baan ku soo dhaweynaa Ceelbu ciidankina waa inay keenay shaqadiina waa bilaabaya saldhigiina waa inoo furan yahay hadii waxaan leenahay in la howlgalo oo degmadii la dawladeeyo hadii alla idmo dadkeena saa ula socdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi waa markii ugu horeysay ee magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaaga ay saldhigga yeelato markaasi ka qayb qaata ammaanka magaalada iyo waliba deegaankaba saldhiggan ayaa hore waxa uga dhisay muddo 2 sano ah gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl oo markaas ugu deeqay magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaaga inay ka qayb qaato magaalooyinka kale ee saldhigyaasha booliiska leh وأحمد عبد الله عيسى أحمد عاشور مقالة Ceelbu ee gobolka Sanaaga